السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، والله ليال وعيسى محمود آدم waxaa maalin dhaweyd waraysiga la yeesheen Faysal Cali Waraabe ayaa wuxuu sheegay inay Cali Khaliif iyo isaga lagu wada casuumay Jarmalka, halka dowladda Jarmalka ay u tagayaan ay kala soo hadlayaan arrimaha Somaliland, khaatimo ay isku biireen waa sidoo hadalka u dhigay, iyo arrimaha ay uga soo sheekeynayaan, kana soo qaadanayaan mucaawino loogu talagalay lacag loogu talagalay Soomaaliya qaybta ay ku leeyihiin ay isku dayayaan inay ka soo qaataan. marka Cali waa ka hadda Mareykan jooga, isaguna hadda u baxaya, halkaasay isugu imanayaan, Jarmalka isugu imanayaan. marka taas waxay inoo cadaynaysaa dantii laga lahaa Cali Khaliif ayaa hadda ay bilowday Somaliland inay maaragtay ka faa'iidaysato. waxa laga doonayay wax kale ma aha, ninkan xoogaa nin caana buu ahaa, marka in adduunka lagu shaxaado qadiyada tanna la yidhaahdo waa khalaas oo waa kana waa dhan tahay. balse marka hore intaanan arrintaa u gelin aan idin tuso Faysal Cali Waraabe wuxuu arrintaa ka yidhi daawasho wacan. safar baa ku qoondaysan, xaguu ku wajahay safarkaas? سفر إن شاء الله سنة إما كان ناقش سنة إلى هنا وزحوي أنا يا بروفيسور علي خليف أيا مدوي كتشرمني لأنه عسومي تجينا إن شاء الله تعالى institutions كمكان ساي كم كوسو شيكينو هشيس كخاتمي سومالن كم كوسو شيكينو إن ودك مال كشدان بدقة بحنيا هالمليون يلا واحد بحنيا بقول يلا ولا 3 مليون دولار أي بحين إن شاء الله تعالى وطلقنا الصومالية سوماليلاند إنه غيبتينا أي نسيان أي أسوق لوبي وصو سمعنا كوستو كامبين كرهنا ما هو هول قرن أيام سعود خاتمة يسومان وصعتها أيام إن شاء الله تعالى أدوك صوتو سنة هنا أرنتا سنة ماطي طاقة سنة حيرنتي إن شاء الله عدو قيلا ير نري ما دركتين laba dhinac un baan ka eegayaa arrinta Faysal. dhinac waxa weeye waa dhinaca Cali in laga faa'iidaysto. waxaa dhibaato ku haysay Somaliland meel allaale iyo meeshii ay galaanba waa laga dabageli jiray, oo dad aqoon-yahana oo reer Sisiya baa ka dabageli jiray. marka waxay isleeyihiin sida uu sheegayo daaqadda waanu soo xidhnay, ninkastoo daaqadda mar walba ay yidhaahdaan waa xidhnay. waqtigii waxaan xusuusanahay markii uu yimi nin iska day askari ahaayo maxaa ahaa kan Kaysi baa u yimi, waxay ummadda u sheegeen albaabka waa iska soo xidhnay, albaabkaas hadda SSC khalaas arrinteedii way dhammaatay, waa iska soo xidhnay maadaama uu ninkan oo SSC ka tirsanaa uu noo yimi, ninkan oo madax u ahaa SSC. waa la soo dhaafay arrintaas, waxba waa socon weyday. haddana waxaa ku soo biiray xagla toosiye oo mansabkii uu hayay laga qaaday ayaa haddana ku soo biiray. maalintaana waxay yidhahdeen waa soo xidhantay, tiina waa socon weyday. maanta waxay maraysaa Cali Khaliif baa u yimi oo waa soo xidhantay. dhacdooyinka horreeyey oo maaragtay ay mar walba yidhahdeen sidaas albaabka waa iska xidhnay, waa qaab tuugaysiga wax lagu doonaya. dadka reer Somaliland beelaha taageera ma garanayo anigu sayday arrintu ka tahay, dadkana waa is yaqaaneen. hadba nin cidla iska maraya in la yidhaahdo kanaa la soo xerogeliyo khalaas arrinta halkaas waa dhammaatay oo been la isku maaweeliyo, anigu garan maayo waxay soo koobi. waana dareensan yihiin dadka badankooda, way dareensan yihiin runtii. hadda kilibka yar daawada ninkan ku jaah wareersan, yani arrintan maalin walba la odhanayo albaab baa la soo xidhay, haddana halkeedii kasii soconaysa. هذا نكن لا يرد هذا دواشة وعن. مرة أنت خاتمة لنا سينية خاتمة دمان مثل لا أنت سومال أنت تبقى خاتمة دمان دونا. أنا خليفة ما أنت ويصير نقطة مر ما مدحونك عينا عدو دون مدحونها نقطة. بريت أنا خاتمة يروح عصوم نيو خاتمة بعد دمان دونا. خاتمة واحد صوت توقع يما. واحد مرة والبا خاتمة لنا سينية. حقنا توصي سنة وحجامي كوحد بوها. ما أنت ويصير عفمات.
برين على خليفة ما يمريا صادوا مرة على خليفة عصوبهم بعدنا نو مور واحد معنا يا ما هو يستبصوا عن زاعد هذه مشروع ولا قد جينا ده على سيود وضع هذا ركتان ساعة تدخل جاوري سين هذا وين جاوري أنا معها لكن وين حقائق لو قال يعني كان لبوسه كحي محو هرت أصلا محو هيستا لأنه هو هيستا وحبسية يسوي ما هيستا يعني دتك سويديا بهذا طايرة سوغلا ورنيك كويمي ورحت يسوي محو هيستا سويديا بها لكن واحد بدايري قابك سوغلا لأنه كل سنة هذا قابس كتوجين نما بركة توجين نما دايري وحكون دميان وماركتي أي بيدونيا والله يسوي بين شيء قضية بين لقى شيء يعني ميل مكان يعني كسر ما صورنا رنتي waxa Soomaaliland si jiritaankeeda si kulliye waa dawladda federaalka iyo waxyaabaha ay hawaysanayaan inay gaadho waa dawladda federaalka iyo qaabka ay ula dhaqmayso sida wada hadallada tan hadda la sheegayo xataa dhawaan madaxweynuhu uu yidhi waan wada hadlaynaa yani horta Soomaaliland horta ma jirtaa yaa lala hadlaya dawladda federaalka waxa laga leeyahay war yaa lala hadlaya Soomaaliland yay tahay Soomaaliland ummadaas oo dhami wax taageersan ma leh kuwan ay beesha ku sheegtaan oo beesha nimanka ay ku tilmaamaan ama reer sheekh laftigoodii de ma wada hadad wada taageersan waliba maanta ka sii darano maanta waxaan oran karnaa inta aan taageersanayn baa badan Soomaaliya beeshaas ka soo jeeda meelaha kale la iska baan marka waxa ay dawladda federaalku isku hadda iyagu waa ordayaan aad bay iyaga ay dabada ka riixayaan arrinta wada hadallada oo ku ordayay oo degdeg ku ah sababtu waxay tahay waxyaabo siris markii ay bilaabantay waxyaabo badan oo faa'iido ah bay ka heleen Soomaaliya tiibay doonayeen iyaga hadda degdeg ay ku tahay arrintan oo dabada ka riixayo qasbaya hataa dad badan oo arrimaha xalila waxay yiraahdaan arrintan tukarraq waxay uga dan lahaayeen in la dhaqaajiyo wada hadallada Soomaaliya marka taas ay tahay marka waa in xaqiiqada la ogaadaa Soomaaliland wax ay haystaan caawa la ma jirto wax sharciyada oo ay haystaan oo ay ummad ku soo hor fadhiisan karaan ma jirto marka dawladda federaalka ayaa la rabay inay arrimaha yani si weyn wax u eegto waxa heshiis haddii horta heshiisyaday horta waxa intaan ay dawladda federaalka la hadal Soomaaliland inay dad badan la soo hadasho waa ka horeeya inay deegaankeeda ay deegaanka ay sheeganayso ay caddayso bal horta deegaanka ka raacsan Soomaaliya sida arrintan Puntland iyo iyaga ka dhaxaysa in la xalliyo waxaasoo dhan baa ka horeeya in wada hadal iyaga lala galo على كل حال si kastaba ha ahaatee waxa weeye qayb taas uga jeedaayo de waa ka been sheegaya arrimaha taas halkaasaan ku dhaafayna tan kale ee Cali Khaliif waxa weeyaan waa lagu shaxaatigayaa maanta adduunka lagu shaxaatigayaa xoogaa magaciisa sidaan soo sheegay magaciisa caanka ah baa la doonaya in laga faa'iidaysto maaragta waxyaalo caynkaasa lagu dhiso marka adduunkii wuu maraya marka waxaan jecelahay dee halkaa clip hadda cajalada waxaan dadka u tusayaa waxa weeye qolyihii mujaahidiinta ahaa ee ka daba tegi jiray arrintaa oo waxaan jecelahay inay arrintaa la socdaan ay ka daba tagaan meesha ay dalka Jarmalka ay hadda tegayaan isugu tageen marka inay la socdaan oo waraaqo iyo wax ka daba halkaa dictooradii joogtay iyo dictoora Asiya miyay ahayd Asiya Xasan iyo ciddii kale ee ka daba tegi karta in laga daba tago beenta ay sheegayaan dee runta laga daba geeyo insha Allah ayaan jecelnahay isagoo Cali Khaliif uu isku dhex yaacay xaalkiisii waxba laga garan maayo mar waad aragtaan oo dee waa isku biireen isagii Somaliland cid u wataana ma jirto khaatumo ninkaasaa ka warramay ninkaa aynu soo dhaafnay kiliibka aynu soo dhaafnay ninkaasaa ka warramay khaatumo meel u wataa ma jirto mid ka mid soo galoba dee halkeedii un bay joogtaa waa nin iska cararaya oo keligii un cidlaa ma ogta iska gudaaya isagii laftigiisi waa marar isduqaynayo hadda kiliibka yar daawada wuxuu leeyahay aan soo biirinaano Somaliland Soomaaliya haddana waa lagu shaqaysanayaa waa kan dhul badan oo arrimaha maaragtay waaweyn oo caalamka kaga xidhan loo kaxaysanay halkan wuxuu ku leeyahay iskuma biirin hadda kiliibkan yar daawada oo Mareykanka hadal oo Mareykanka jeedi hadda daawasho waa waray wantan aan idinku leeyahayna inaanu idinka idinku tala galay that's what I say Hargeysa markaan waa dhaweyto qadooyin oo
interesting enough bila raflaa yimi oo qadooyin badan aanba uga faa'iidaysan qabaa'ilka oo dhan baa qabiilba maalin qada siinayay kuwaasaanu ka qayb galnay markaasaa durbaanka la tumaya haa dee haddaynu hadda somaliland wadanahay war manihin warbalukaadiye marka dee kolley anuu kolley waa iyadan da cidina ma ogola war anigu da-deeda waa ogolahay war wakti badan oo dambe oo aan waxaan kusii jiri doonana kuma talagelin waad aragtaa isagii waa isduqaynayaa mar waa ku biiray mar kuma biirin laakiin sida xaqiiqadu tahay waxa weeyaan cali kuwaa hore wuu ka duwanaa Saleebaan xag la toosiyey iyo tusaale ahaan cali way kala duwan yihiin Saleebaan wuxuu ahaa nin markii hore xaggan aan Somaliland shaqo ku lahayn hase yeeshee markii mansabkii laga qaaday wuu isaguna xiniya taabasho awgeed iyo ku xumayn ayuu Somaliland u aaday laakiin cali wuxuu ahaa nin asalkiisaba Somaliland soo dirtay markiisii horeba inay Somaliland soo dirtay buu ahaa oo isaga inuu dadka reer SSC soo kala furfuro oo soo xerogeliyo intuu kari karo ayuu ahaa hase yeeshee dee iyagu way ku hungoobayaan sababto waxay tahay dadkan dhaqan baa u taliya soo ma garan dhaqankiina may gaari karaan lalamana dee iyaganba diyaar u ahayn inay la hadlaan siduu garaad Saleebaan mar la dhegeysa dhowr goor baan soo saaray kilibka aan soo saaray wuxuu yidhi weligay lama kulmin la kulmi maayo lamana kulmi doono ilaahuna ha igu keeni wax igu kallifay inaan la mid kale Somaliland maamulka la baxay anigu weligay lama shigin lamana kulmin lamana hadlin lamana hadli doono ninkii oran doona waa la hadlay ama waa loo yimi ilaahay buu beenu sheegay lamana hadlin lamana hadli doono intaan noolahay labada kulmi doono tan xun ay u kallifto oo iga xiran tahay ilaahay igu keeni halkaasaa laga taagan yahay oo isimadu iyo dadka waxgaradka ay waaweyn ay ka taagan in badan baa la yaaban garaadka kan maxaa hadalkaa ku kallifay hadalka sidaa u qaraan maxaa ku kallifay because wuxuu og yahay inaanay nimankanu maaragtay waxooda khiyaano iyo afduub iyo wax la mida ay yihiin oo aanay marnaba yacni si waaqaca ula waxaa laga yaabaa oo iyagu waxay uga jeedaan uun bas shir inay isugu yimaadaan la fadhiistaan isku sawiraan isla saacadda ay isku sawireen sawirkiisa wuxuu yaallaa beesha caalamka loo diraya iyo adduunka loo kala diraya waxaa laleeyahay waa kaasoo waanu heshiinay garaad Saleebaan baanu heshiinay SSC albaabkooda waanu iska soo xidhnay waa noo dhammaatay waan heshiis baanu intaasaa adduunka loo diray taasuu og yahay marka sidaasuu dhowr goorna waa isku dayeen boqolaal goor bay isku dareen maruu xanuunsanayay marka sidaasuu u diiday wadahadalkooda inuu wax wadahadal la yeesho marka waxaa fiican darafyada ay khusayso inay arrimahan ay maaragtay ku baraarugaan siiba dadka reer Somaliland beenta loo sheegayo muddada intaan la eg loo sheegayo yacni inay ka ilbaxaan oo dee hadda dad badan baa baraarugay sidii doorashadan siday u dhacday dee wax badan baa la ogaaday oo hadda dee xukuumad cusub baaba hadda lagaga dhawaaqay Somaliland marka xukuumadda cusub ninkaas madaxweynaha ah kulley khudbadihiisii waan dhegaystay dee waxyaabo badan oo insha allah dadka ay safgaran doonaan ayuu sheegay marka isagana in la taageero oo maaragtay lasoo dhaweeyo ayaan ugu baaqaya ummadda keyskanna waa in laga daba tagaa keyskan Faysal Cali Waraabe iyo beenta ay la aadeen Germany raggii barakaysnaa iyo raggii iyo dumarkii barakaysnaa dee mujaahidiinta arrintaa waa inay ka daba tagaan oo aan loo gaban inay arrintaa wax ka qabtaan weeye waraaqa ka daba geeyaan arkaan ciddii ay arkeen oo aan laynoo dhuuman intaas ayaan usoo duubay kilibkan yar marka khayr baan idiin rajeynayaa لما وسلامتهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.